waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto marka shareecadu ka hadla macallinku dilka bini aadamka oo ah inta ugu badan ee bini aadamka mushkilad dhex dhigta marka laga hadlo markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebi aadan abuuray calayhi salaatu wasalaam ee uu malaa'igtiiraha loo sujuudo dooday ka keeneen bal u fiirsada waxa ay ku cileeyeen markaa waxay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa ma waxaad arlada khaliif uga dhigee markaas waa oon bini aadamkan iyo da'bigooda ay ogaayeene mid fasahaadinaya arlada bal u fiirsada intii kaloo fasaadka ahayd hal jaanibay ka dhigeen wayasfiku dimaa hal jaanibay ka dhigeen fiiri dhulkana ku daadinaya dhiig inta bini aadam uu xumaan sameeyo dhan waxay ka soo qaadeen hal dhinac bini aadamka dhiiggiisa daadanayana hal dhinacay ka soo qaadeen maxaa meesha laga fahmi karaa marka qofka bini aadamka dhiiggiisa meesha ilaahay dhigay waa arrin ay tahay inay doorkeeda qaataan ragga odayaasha oo hadda imaamku ka hadlo meeshan ka hadlay iyo ragga khiyaarta dhinac fadhiya qur'aanku markuu haddana ka hadlayo dilka ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi war qisaastu nololay idiin tahay yaa la leeyahay marka yaa ulil albaabi kuwa caqliga leh maxaa looga jeedaa magaaladan muqdisho من كلا حلا من كدلي حمر لبدا من عدي من سرورها من عير من كدلي حلا من عير من عساكي ومن دلي macnaha waa laba nin kaloo xamar lagu dilaa la ii sheega oo nin kaloo habar gidira ku dhintay xalay waa isla dareenka macnaha na wada taabanaya annagoo 700 kiiloomitir u jirna xamar on dilku xisaab lahayn inuu noo xisaabsanya ninkii dhintay markaan marka u imaado waxaa jiri jirtay wargeys waxaan rabaa in si fiican la ii dhegaysto shareecadan rabaa inaan idiin qeexo waxa ilaahay noogu qeexay in la fahmo dadku qisaasta waxa la yiraahdo magaalada muqdisho wargeysa ka soo bixi jiray wargeyska waxa la jiray qaran waxa lagu qori jiray maqaal la yiraahdo usbuucan imsaal la dilay ayadoon dagaal ka socon markaas waxa dhacaysa in la soo koobo 30 40 50 60 qofood oo siyaabo kala gedisan muqdisho loogu dilay waa xilligii maxaakiimta ka horeysay usbuuc markii bisha la isu geeyo 300 400 qofood oo muqdisho lagu dili jiray billaahi calaykum markii maxaakiimtu yimaadeen 6 bilood 6 qofood dhimatay laba nin oo isdilaysa markii ugu horeysay indhaygaasaan saaray nin carwa altooba askalaha oo cayr ahaa oo nin kale oo dudublaahi uu dilayo nafta ka qaaday xabad la dhacayo isagoo iska cali kamiin ninkaa waa la qabtay qofkii koowaad oo dil lagu fuliyo u ahay nin reer cadaadaha isaguna dilay nin dudubla isla meesha la dhigay labadii dhimatay oo la dilay iyo labadii dishay waa la dilay labada nin oo kale si khalad ay ku dhinteen 6 bilood 6 qofooda dhimatay bal isweydiiya magaaladu waa magaaladii dadku waa dadkii ilaahay waa ilaahay maxaa ka soo kordhay waa shareecada hadday noqoto marka in la yiraa magan u xilanaynaa oo ninkii la dilaba xoogaa yar laga keeno dilkaasi waa soconaya waxaa la rabaa haddaan nahay dadka ilaahay tilmaamayo yaa ulil albaabi ilaahay leeyahay dadka caqliga lahow ragga meeshaan joogaa inay saxiixaan dilku inuu qasaas yahay ninkaa in la soo qabto shareecadu way cafin kartaa oo waliidamku waa cafin karaa magu ka qaadan karaa waana dili karaa haddaan taa la qaadan ogaada dadka waxa isku diraa waa dil ninaa nin dilay nin kale loo dilay saddexa isdishay dagaal shash waa waxa Soomaaliya ugu xun oo maanta ka socda waa dilkaas waxaa la rabaa meesha laga zuulinayo iyo ragga zuulinayo meesha laga zuulinayo ay noqoto deegaanadanada dadka zuulinayo ilaahay sababta uga dhigay noqoto odayaashiina meesha fadhiyo adnaan mag qaadan markaan intaa kaga gudbo arrinta ku saabsan marka mawduuca maanta laga hadlayo oo ah qofka la soo xulayo waxa cabdiqaasina waxaan ka bartay waagi cabdiqaas la yimid carta laga yimid uu yiri nin baa islaan loo aroosiyay oo xogaa waa cabsanaya markii daasariirtii la tagay hadday rag rabtaa hadda maanta rag rabtaa waxa ay rabtaana waa maxay inaan nin yiraahdo nimayo waxa la igu daro meesha aan lagu darin marka loo fiirsado
nin yiraaha la igu daro inaan meesha lagu darin nin moog oo aan dan ka lahayn in la soo qafaalo oo lagu qasbo macnaha loogu duceeyo dadka la rabana dadka la doonayana waxaa lagu xuli doonaa kriteeriyo iyo shuruuc sida macallinku sheegay qof diin leh asalku waa diin akhlaaq leh aqoon leh xishood leh run leh qabiil wax la yidhaahdo aqoon oo dadka meeshaan jooga aan kala sokaysan karin li'anna qabyaaladuna waa midda meeshaana dhigtay waxa meeshaana dhigtay dadka Soomaaliyeed oo meelay joogaan caalamkaba hal cunsur isku aan qoomiyada kala ahayn oo ahaa fiiri adduunyada dadka kaliya ee Ilaahay uu ka dhigay dad isku afa oo isku diina oo isku dhaqana oo isku midaba oo dhammaantood aan qof gaala laga helin inkastoo hadda Yurub iyo Mareykan Kirishtaan badan ay ka dhasheen oo dad badan dadkaan ay gaaloobeen haddana weliba isku madhaba oon shiica laga helin oo sunniyiina adduunyada dalka uu ka jira Soomaaliya kaliya dadkii noocaas ahaa sidii basasha qabyaaladu ay la kabamar u reereebis waxa isugu soo hartay inay habar gidir isdisho tuuladii jufayr isugu hartay jufadaas isdilaysa waxaan marka rabnaa ummadda dadkii cilaajin lahaa oo dhaqaatiirta u noqon lahaa inaad ilaahay asbaab gashataan dadkii ilaahay nala heshiisiin lahaa oo annaga dhaxdanadana heshiisiin lahaa oo Soomaali nala heshiisiin lahaa dadka in la soo xulo ee aynan noqon nin siyaasadda u yaqaana nin baa hadda koor in saaxiibkay Cabdullaahi Raa wuxuu yiri iyadoo waagi la dhiilka shir la aadaa nin wuxuu yiri nin ugu dar shirkaas markaas la maxad ka doorsan nin dhiilkan ka danayna macnaha ninkaas wuxuu leeyahay shirka waa u aadaa waa maslaxad yar oo raqiiso isaga siyaasadda iyo gudiyada la galo dada waxay u galaan dan ku gaar wax ku dhac wax ku boob waxaan rabnaa in laga gudbo dhaqankaas ogaadana waa la idin la soo celi doonaa waana la sheegi doonaa waxa la dhihi doonaa xaafad hebla dadkii ay keeneen dadkii laga digayay keeneen dadkii la rabana ma aynan keenin gudiga la sameey doonaa meeshaan shaarica iyo maxfalka inta la iska ceebayn waxa la rabaa rag weys yaqaanaan nina la aqoonna lama aqbali doono lama yaqaano sifooyinka tilmaamaha xun nin lama aqbali doono laakiin waxa la rabaa 11 xubnood oo cid walba soo xushaa inay noqdaan in la yiraahdo Allah ilaahay reer hebel calooshoodii ay soo tufeen oo banaanka keeneen haddaanay sidaa noqon xoogii iyo xoolihii iyo waqtigii la soo lumiyay hal bacad lagu lisay noqonayaan dardaarankaas wuxuu saaran yahay ragga meesha fadhiyo garcasta odayaasha oo wax soo dhaqi jiray haddaad rabtaan in wax la bedelo dadka bedela wixii aan ka alla bari jirnay haddaan rabno inaan ka alla barino dadkii laga alla bariyay oo dhibaatadaas iyo intaasna soo wado aan mar walba waxa la ogaana jira tan halkan la dhigay in laga alla bariyo oo wax cusub la keeno hada billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh